الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة، وبرنامج كان امتحانها أها وأن كدر سينيني تاريخ الإسلام قيبتي سي شناد أيان سو قارني فدقي كوريي وحا نوضن بيسي ونكاقصو هذا بيعة العقبة الثانية ودحمرت النبي صلى الله عليه وسلم يا أوس يا خزرج وأنصار ليسكو يرادو بيعة سمركي أي دماتي رسولك صلى الله عليه وسلم أي وحي كذا البدين تضواتا يشنتي نبي صلى الله عليه وسلم بيعة لقى شيء إن أي ويرران على أهل العقبة قال كوا أقوله عقبة دقن إن أي ويرران وحين أقادين ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أي بيعة لقلين بيعة أصنع أي كلا قلين النبي صلى الله عليه وسلم وحلالي وحي المهودة إيو نفتودة إيو إهلكودة إي كدفعينيان oo ay ka celiyaan in nabigana ka celinayaan sallallahu alayhi wasallam marka waxay ogaadeen inaan dagaal laga fursanin markaas nabiga idan weydiisteen sallallahu alayhi wasallam nabiga uma idmin sallallahu alayhi wasallam xayay jihadka lama waajibin marka nabigu waa ka reebay sallallahu alayhi wasallam inta kadib muslimiintii nabiga alayhi salatu wasalaam ma ka joogtay waxa uu idmay inay hijroodaan oo ay ka ambabaxaan magaalada Makka oo ay Madiina u ambabaxaan sababka hijradaasina waxay ahayd nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa riyo lagu tusiyay oo nabigu wuxuu yiri uriitu daara hijratikum zaata nakhlin waxa lay tusiyay baa nabigu sallallahu alayhi wasallam daartiini aad u hijroon lahaydeen baa lay tusiyay oo riyo baa laygu tusay meeshaasna aad u hijroonaysaan daartaasi waa mid u saaxiiba timir geeda timir ay u saaxiibto leedahay markaaba saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam durba way garteen inay meeshaasi tahay Madiina waa u degdegeen hijradii waa u degdegeen qofkii ugu horeeyay oo hijrada u baxayna wuxuu ahaa saxaabigii ugu horeeyay Abu Salama ibn al-Abd al-Asad Abu Salama ibn Abd al-Asad زوج سلمة رضي الله عنها وحنا صور شيخنا النبي عليه الصلاة والسلام من اسم الناس نوبين ولا لا هايين سجى أبوه الرئي أو صاء ببحي سجى يحاس كيس أم سلمة لكن ولا حبسي أو قال دي أيا يده خيفتي أو كمان عسي إني هلاشه هل صنع أي كعلين يعني إني وحويان هل صنع أي كعلين inay ninkeedii haleeshoy hijrooto ayada iyo caruurteedina waa kala teedeen oo waa kala celiyay hal sano kadib ayay baxday ayadoo caruurteedii wadata ayay Madiina u hijrootay Salama iyo Abu Salama hijradii Xabasha waxa weeyaan loo hijroodana way la socdeen saxaabadii u hijrootay bay kamid ahaayeen saxaabada bay la socdeen way hijroodeen Xabashana u hijroodeen Madiina u hijroodeen waxaa sii sagootiyay Uthman ibn Talha ninka la yiraahdo ayaa sii sagootiyay markay u socotay oo ilmaheeda ay wadatay u socotay zawjkeedii Abu Salama oo Madiina markaa uga horeeyay oo soo hor hijrooday meeshaas marka waxa ku jirta mas'ala fiqhiya waxay tahay mas'aladaasi nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay haweeneyda mahram la'aan inaysan safri karin oo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam yeysan safrin haweeney ilaahi iyo rasuulkii rumaysay illa wa ma'aha bi mahramin ruux mahram u saaxiiba inuu la socdo maahan marka mahramnimada ma loo shartinayaa haweeneydu mar haday hijroonayso waxay la cararayso ay waxa weeyaan diinteedii ay tahay mahram ma laga rabaa محرم الآن مركب محرم هدي ويسو محاكا دلانيا إني ماشيدي قالada waxa weeyaan iskala joogto loo shardinayo cid u shardinaysa ma jirto culimada dhan waa isla ogol yihiin markaas waa daruura weeye maadaama ay diinteedii la cararayso waxa weeyaan mahramnimo looma shardiyo
ولذلك مهاجرات كي وحويان هوينك سو هجرودي أكثر كود وحويان وح محرم ما أيسن وضع marka haweenaydu mar haday la cararayso la faq wixii la fakana ay tahay diinteedii waxa weeyaan mahram la'aan ay waxa weeyaan ay markaa safri kartaa inta kale waxa weeyaan ma banaana haweenay mahram la'aan waxa weeyaan iska socoto iska dawaafayso dhulka shariicadu waxa weeyaan ma aysan banayn haweenka waxa weeyaan Soomaaliyana waa haweenka kuwa ugu safarka badan dunida waa la ogaaday waxa weeyaan haweenka Soomaaliyeed ragga waa ka safar badan yihiin min qaara ila qaara waxa weeyaan qaarad laga bilaabo ila qaarad kale ay u kala goosheen waliba ayagoo waxa weeyaan wadaada waxa weeyaan mahram la'aan taasna waxa la rabaa in waxa weeyaan haweenku Ilaahay uga cabsadaan subhanahu wa ta'ala oo waxa weeyaan mahram la'aan aysan bixin sidaas ayaa la doonayaa waayo nabi wuxuu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam as-safaru qit'atu min al-'adab safarku waa qayb cadaabta kamid ah marka waxa dhici kartaba waxa weeyaan inta ay safarka ku jirto inay ba dhimato markaasna waxa weeyaan khaatum xumo ay halka ka imaatay maxaa yeelay iyadoo dambi ku jirto ayay dhimatay iyada billah ilaahan ka magan galnay marka waxa la rabaa walaalayaal inaan arintaas ka baraarugno oo haweenka Soomaaliyeed safarkan ay iska safrayaan oo min qaarad ila qaarad ay u kala gooshayaan inay Ilaahay uga cabsadaan oo waxa weeyaan nabiga sallallahu alayhi wasallam taladiisa ay raacaan taladii nabiga sallallahu alayhi wasallam sheegay waxa weeyaan inaysan safrin illa wa ma'aha di mahramin tayyib markaas kadib saxaabadii waxay bilaabeen inay koox u hijroodaan nabiga sallallahu alayhi wasallam asaga looma idmin inuu hijroodo magaalada Makka marka waa laga gurmay oo waxa loo socday magaaladii Madiina ayaa la aaday muslimiintii halkaas ay u ambabaxeen magaalada Makka kuma harin rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo Abu Bakar iyo Ali ma ahan iyo in yar waxa weeyaan oo mushrikiintu ay xabiseen oo ay ka celiyeen hijrada ma ahan waxa weeyaan waa la faarujiyay magaaladii Makka Madiina ayaa loo ambabaxay Abu Bakar iyo Ali nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa reebay Abu Bakar nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu la ambabaxay oo la saaxiibay oo rixladii ayuu kala qayb qaatay calina nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu u reebay inuu waxa weeyaan wadaaicii amaanooyinka uu haayay iyo deyntii lagu lahaayay iyo waxyaabaha inuu ka soo furtaamay kadibna ka daba imaado Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu wuxuu diyaariyay ambabixiisi gaadiidka uu ku ambabixi lahaay ayuu diyaarsaday rasuulku wuxuu ku ambabixi lahayn waa u diyaariyay asagoo sugaya xilliga nabiga sallallahu alayhi wasallam loo idmaayo inuu hijroodo oo baxo oo magaalada Madiina u hijroodo marka nabiga alayhi salatu wasalaam ayaa loo idmay habeenkii waxa weeyaan oo gaaladii baa shir qabatay sidii nabiga alayhi salatu wasalaam arintiisi ay wa takhalusi lahaayeen shir weyn bay qabteen oo xataa ibliis oo ka soo qayb galay marka في سورة الأنفال با إلهي كل شيء وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قال وحي رادين وإن الحره وحفص أنجلينه من كان أرنتي سيداسا ورهي كرنا وأنقص أثميري كرنا هوليهيسا إن الحره حفص أنجلينه حوما الشيقين باليري اسكتشوك قفكيري والدلعي oo ibliis baa dhaleeceeyay taladiisi kuwa waxay yiraahdeen waa inaan musaafirino oo dhulkan ka bixino fikirkaasna waa la dhaleeceeyay asagana waxa la soo jeediyay oo Abu Jahl uu soo jeediyay in la dilo ninkaas kaartada loo dilayna waliba ay tahay Quraysh waxa weeyaan jufooyinkeeda in jufa kasta wiil laga soo saaro 10 wiil oo midba jufa ka tirsan yahay in seef loo dhiibo mid kasta 10 kooda hal mar ay ku kulmiyaan sidaana nabiga lagu dilo sallallahu alayhi wasallam laga takhaluso reer bani hashim markaas waxa weeyaan diya la siiyo fikirkaas marka waxa xoojiyay ibliis waa la wada qaatay fikradaas 10kii wiil ayaa la diyaariyay iyo seefahoodii habeenkaas marka shirqoolkaas nabiga loo maleegayo sallallahu alayhi wasallam
maalinteedii ayaa nabiga loo idmay inuu ambabaxo marka xilli waxa way uu nabigu soo jirin oo qorax kuleyl ayuu Abu Bakar guriga ugu yimid markaas uu sheegay nabigu waa noqday kadib waa soo diyaar garoobay nabiga kaleey salaatu wasalaam xilliga habeenkii markii la gaaray ayay gaaladii timid albaabkii nabiga dadkii loogu talagalay ayuu seefahoodii wata ay soo istaageen nabiga kaleey salaatu wasalaam marka uu soo baxay waxayna rabaan markuu nabigu soo baxo inay dilaan nabigu waa soo baxay kaleey salaatu wasalaam mid kamidii ma uusan arag iridiisay taagan yihiin dhooban yihiin bal waxa sugan nabiga kaleey salaatu wasalaam inuu carra qaatay oo mid kasta uu madaxa uga shubay kadib nabigu waa soo ambabaxay sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar ayuu guriga ugu yimid waa ay baxeen marka Abu Bakar iyo asaga waxay ka baxeen min khawqa fi dari Abi Bakr laylan darishad ayay ka baxeen nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo Abu Bakar ba ilaa habeena ay soo ambabaxeen waxay kireysteen oo shaqaaleysteen Abdullah ibn Urayqid ad-Dili ninka la yiraahdo ayay shaqaaleysteen wuxuuna ahaa nin oo waxa weeyaan daliilka ku fiican oo dhulkan waxa weeyaan Madiina waxa weeye wadooyinka loo maro iyo aad u yaqiinay ayuu ahaa nin khiriida ayuu ahaa maahira nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo Abu Bakarna way aamineen مع أنه ولبا أصوه كان على دين قومه أصوه ولبا دينتي قومكي سيهيستا أي آمينين waxay u dhiibeen labadoodii daabad oo ay ku safri lahaayeen Madiina ku tagi lahaayeen bay u dhiibeen waxayna kula ballameen waxa weeyaan 3 maalmood kadib inuu ugu yimaado oo labadan daabad soo wada u keeno qaaru thawrna ugu yimaado nabiga kaleey salaatu wasalaam markii iyo Abu Bakar godkii ay galeen sida sugan nabiga kaleey salaatu wasalaam firaashkiisii waxa ku bariyay habeenkaas Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu nabigana waa baxay oo godkii ayuu aaday mushrikiintiina marka ilidii ayay taagnaayeen habeenkii oo dhan ayagoo waardiyeynaya Ali oo u maleeyay nabiga kaleey salaatu wasalaam way suwayeen marka waxay sugayeen inuu soo kaco kadibna waxa weeyaan ay ku kulmiyaan 10 seef oo sida uga takhalusaan habeenkii oo dhan marka sidaas ay ku joogo markay waa bariisteen ayay waxay arkeen waxay xaaladdan ay sugayeen oo waardiyeysanayeen inuu Ali ahaa markaas waxay ku yiraahdeen inta u soo galeen ayna saaxiibka aw saaxiibkaadi markaas wuxuu la adri anu ma garanaayo riwaaya kale la ilma li aniga ilmi umilihi meelow aaday ma garanaayo sidaas wiil Ali radiyallahu ta'ala anhu kadib waxay ogaadeen nabiga iyo Abu Bakar inay ka fakadeen ayay ogaadeen raadkoodii bay soo raaceen way soo raacdaysteen buurtii markay soo gaareen buurtii ayay yimaadeen buurtii markay soo gaareen buurtii soo koreen godkii markay yimaadeen ayay waxay ku arkeen godka albaabkiisa waxay ku arkeen nasjal ankabut caaro ayay ku arkeen oo caaro waxay ku samaysay albaabkii iyo iridii ay ka galeen godka ayay guri ku samaysay markaas waxay yiraahdeen law dakhalaha huna lam yakun nasjul ankabut ala babi haduu halkan ku jiri lahay Muhammad ankabuudan waxa weeyaan baashan caaradan kuma samaysateen ayay yiraahdeen Ilaahi wina subhanahu wa ta'ala ayaa ka qariyay oo ku asturay u gargaaray sida Ilaahi ba uu yiri illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها جنود أسوحا كمذا بعلماء ذيرادين وحويان عرض أصاب كمذا وإلهي ونا سبحانه وتعالى هو أذيجي نبي عليه الصلاة والسلام sidaas ayaa Ilaahi wina subhanahu wa ta'ala godka ugu badbaadiyay ninkan leer Aamir ibn Fuhayra wuxuu sameey jiray marka xoolihii ayuu soo caraabi jiray oo xoolo ariya oo Abu Bakar uu iska lahaay oo waxa weeyaan uu soo caraabi jiray nabiga iyo Abu Bakar ku soo caraabi jiray ku soo ekay jiray godkay ku jireen
Asmaa binti Abi Bakar ayadana waxay sameey jirtay zaad ayay godka u soo qaadi jirtay Abdullah ibn Abi Bakar asagana wuxuu soo dhageysan jiray waxyaabaha ay ku sheekaysanayaan reer Makka faaru Makka waxyaabaha ay ku sheekaysanayaan ayuu soo dhageysan jiray markaas uu Nabiga kaleey salaatu wasalaam u keeni jiray habeenkii marka saddex loo dhigo thuluthka koowaad marka uu tago ayuu Nabiga u imaan jiray markaas uu u sheegi jiray waxyaabahaas wax weeyaan ay ku sheekaysanayaan ay ku hadaaqayaan si ay isaga ilaaliyaan marka Nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo Abu Bakar godkii ay ku jireen markay halkaas soo gaareen gaaladii oo Nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo Abu Bakar ay godkii ugu yimaadeen Abu Bakar markuu arkay gaaladii lugahoodii markuu u jeeday lishiddati xirsihi waa iska ooyay markii mushrikiintii meesha ay soo mareen u jeeday waa iska ooyay wuxuu yaa rasuulallah law anna ahadahum nadara mawdi'a qadamayhi la ra'ana rasuulka ilaahayow ahad kamida ayaga hadduu meesha waxa way labadiisa gomad ee yaalin oo fiirin lahaa la ra'ana waan arki lahay markaas rasuulku wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam ya Abu Bakar ma dhannuka bi ithnayn illahu thalithuhuma Allahu akbar malahaadu muxuu yahay Abu Bakar oo labo oo Ilaahay weena subhanahu wa ta'ala oo saddex ku yahay marka Nabiga kaleey salaatu wasalaam Ilaahay weena subhanahu wa ta'ala ayaa u gargaaray Ilaahay baa meesha ku xifaaday ku ilaaliyay saddexdii maalmood kadib waxa uu yimid Abdullah ibn Urayqid ad-Dili siday ku ballameenba labadii daabad soo wada ayuu u yimid waa koreen Nabiga iyo Abu Bakar marka waxa raacay oo fangaliyay Amir ibn Fuhayra ayaa daabadiisii la raacay Abdullah ibn Urayqid waa socday hortooda ayuu socday Nabiga iyo Abu Bakarna way ka daba socdeen Quraysh markay ogaatay Nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo Abu Bakar inay ka fakadeen waxay dul dhigtay qarash bay dul dhigtay waxay yeeshay Quraysh ruux allaaliya ruuxii keena Muhammad ama Abu Bakar keena 100 neef oo geela ayaan siinaynaa biyaas marka madaxooda waxay dul dhigeen waxa weeyaan kiiba 100 neef oo geela qofkii labadoodiiba keena wuxuu yeelanayaa 200 oo neef ayuu yeelanayaa gaaladuna waxa weeyaan hadda zamankan way sameeysaa zamankan gaaladu waa ay sameeysaa oo qofkii ay doonayaan oo danahooda ka hor yimaada lacag bay dul dhigaan atawaasaw bih bal hum qawmun taaghun isku mid wey waa isu dardaarmeen markii Nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo Abu Bakar ay soo mareen reer Mudlij meeshay degi jireen markay soo mareen waxa arkay nin la yiraahdo Suraaqa ibn Malik ibn Ju'shum oo sayid u ahaa reer Mudlij ayaa indhaha saaray markaas wuxuu soo qaatay faraskiisii baxdayga ahaa ayuu soo qaatay waana soo raacdaystay Nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo Abu Bakar ayuu soo raacdaystay markii uu soo dhawaaday ayaa wuxuu maqlay Nabiga kaleey salaatu wasalaam qiraa'adiisa ayuu maqlay Nabi Quraan buu akhrinayay Abu Bakarna milicsigiisa aad iyo aad u farabadnaa xadaran ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam baqdin oo Nabiga u baqaayo kaleey salaatu wasalaam Nabiga kaleey salaatu wasalaam soo meelna ma milicsanay Ilaahay weena subhanahu wa ta'ala ayaa xasiliyo alla wuxuu fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha Ilaahay ba xasiliyay markaas Abu Bakar wuxuu ku yiri rasuulku ya rasuulallah hada Suraaqa ibn Malik kani waa Suraaqa ibn Malik waana nahaya wana soo daba jooga sidaas Abu Bakar Nabiga ku yiri rasuulka kaleey salaatu wasalaam markaas ayuu habaaray Suraaqa markii Nabiga uu habaaray labadiisa lugood oo hore faraskiisii ayaa dhulku qabsaday dhulkii ayaa ku dhigay markaas wuxuu yiri Suraaqa ayaa wuxuu yiri waxaan ogaaday shayga ay asiibay inuu yahay habaarkiini ayaa ay asiibay Ilaahay iyo bari oo Nabiga ku yiri kaleey salaatu wasalaam waxaan leeyahay oo aan dushiina ku leeyahay inaan dadka adinka inka celiyo dadka waan idinka celinaya marka Ilaahay ii bari
nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu u baryay markaasaa la sii daayey faraskii waa loo sii daayey rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayuu wuxuu su'aashay Suraaqa inuu waxa weeyaan warqad u qoro oo ku magagelinayo warqad inuu u qoro marka nabiga calayhi salaatu wasalaam warqadii ayuu wuxuu amray Aamir ibn Fuhayra sida saxiixa ah bacdi ka culimada kamid ah Abu Bakar oranaya laakiin warqada waxa qoray Aamir ibn Fuhayra ayaa qoray maqaar ayuu ugu qoray waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu qori jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam waa uu noqday marka Suraaqa warqadii uu qaatay isagoo dadkii ku dhahay dadka ku hor yimaada qad kufiitum ma haahuna halkan waxa jira waa leenka kaafiyo wax jira male sidaas uu dhahay qad kufiitum ma haahuna halkan waxa jira waa leenka kaafiyo sidaas uu oranay ninka marka la yiraahdo Suraaqa wuxuu yimid maalintii sanadkii wuxuu caam hajjatul wadaa marka islaamnimadiisu waa daahday ayuu yimid marka nabiga kaleey salaatu wasalaam ayuu warqadii u dhiibay markaas rasuulka kaleey salaatu wasalaam uu oofiyay wixii uu yaboohay nabiga kaleey salaatu wasalaam aad iyo aad ayuu wax weeyaan ballanta u oofi jiray wixii warqada uu qornaa baa nabiga kaleey salaatu wasalaam u oofiyay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu soo maray socodkiisii oo wadadii oo u dhaxaysay Makka iyo Madiina intuu ku sii jira wuxuu soo maray khaymat Macbad gabadh Macbad khaymadoodii tayndadoodii ayuu soo maray marka nabiga kaleey salaatu wasalaam Macbad agteeda ayuu ku qayluushaday waxayna aragtay oo nabiga kaleey salaatu wasalaam ay ku aragtay aayaad iyo calaamad tusay nabiga kaleey salaatu wasalaam nabinimadiisa naaf yar oo waxa weeyaan wax aanaba aan lahayn sana abaarana waa lagu jiray ayaa nabiga kaleey salaatu wasalaam candhada ka saraxay markaas dadkii oo dhan loo lis ay deeqan marka waxaas la yaabtay aqligeeda oo wareer muujisadaas nabiga kaleey salaatu wasalaam nabigu markuu soo ambabaxay oo magaalada Makka uu ka soo ambabaxay ansaartii waxa soo gaaray nabigu inuu soo baxay uu ku soo wajahan yahay waxayna ahaayeen maalin kasta kuwa soo baxa ayay ahaayeen oo yimaada meesha xarrada leeyahay shilmadow ayay imaay jireen ayagoo nabiga sugaya kaleey salaatu wasalaam subax kasta way soo bixi jireen markii la gaaray maalintii Itniinta bisha Rabiicul Awwalna ay ahayd 12 sanana min nubuwati sallallahu alayhi wasallam laga joogo 13 sano ayuu nabiga kaleey salaatu wasalaam ka joogo ayaa rasuulku kaleey salaatu wasalaam uu soo galay magaalada Madiino xiina ishtadda ad-duha barqadu markay aad u adkaatay qorraxdu kululaatay ayagiina waxa weeyaan subaxdaas ansaari waa ay soo kalaahdo way soo baxday markii waqtigu ku dheeraado markii qorraxdu ku kululaatay way iska noqdeen guryahoodii ku noqdeen ruuxii ugu horeeyay nabiga kaleey salaatu wasalaam arkay wuxuu ahaa nin yahuudi ayuu ahaa wuxuuna ku dul sugnaay على سطح أطمه تاج أو أسوء إسكالهاي تشيس أيو كسغناي ولو لهايو تاجا أيو كدول سغنا مركاسو بأعلى صوته كل واقي يا بني قيلة وحالي الأنصار أنصار معنا خزرج أوصى يا رب بني قيلة ليسوي هذا يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون لكان وجدكني أتسوي سين reer bani qaylo sidaas oo kor ugu qaad ansaartii waa soo baxeen hubkoodii ayay soo qaateen nabiga kaleey salaatu wasalaam ayay la kulmeen waa islaamay nabiga kaleey salaatu wasalaam bi tahiyyat an-nubuwah ayay nabigeena kaleey salaatu wasalaam ay salaamay aad u soo dhaweeyay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku degay meesha Quba la yiraahdo ayuu nabigu ku degay kaleey salaatu wasalaam gurigii uu ku degay كوها كلثوم ابن الهدم نكال يرادو كدغ waa la yiri بعض culimada kamidna waxay dheen Sa'ad ibn Khaythama ayaa nabiga kaleey salaatu wasalaam uu ku degay muslimiintii ayaa yimaadeen nabiga ayuu salaamaya kaleey salaatu wasalaam aktarka muslimiintuna ma aysan garanay nabiga kaleey salaatu wasalaam hore uma aysan arag
أكثر كمسلمين تمرك يمادان أكثر كود وحي ملايين نبي وحي ملايين أبو بكر بملايين لكثرة الشيب نبي أبو بكر عفدي ساعات ودرنت مركا قف كستاهي وحي ملايين مركو أركو أبو بكر بالنبي ملايين لكن قرمي كلا عداتي أو أبو بكر إنه النبي جاهين روحه كلا أو نبي إلهي وياهي قرمي كلا عداتي والرحل مركي درناتي أي أبو بكر باستاغي مرأ أيولا استاغي أصوى النبي عليه الصلاة والسلام حريناي فتحقق الناس مركضتك وحقيقوا دي حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله أي أحقيقوا بي وأحد كالله حريناه إنه النبي محمد يهي كان وحرينا ينا أبو بكر ويهي مركز أي عداتي قبل النبي عليه الصلاة والسلام وكنا قاعدين معلمي أوجوي علماء السوق خلافان دوري لباتن واليري الحافظ ابن كثير الفصول في سيرة الرسول وعقود دورنا يا أفر يتوان معلومات إنه النبي عليه الصلاة والسلام وماشى قبل لرأوجوي النبي وماشى أصبحوا كأس أصي مساجد كاللي هذا مسجد قباء أيو كأس أص مسجد قباء أيو كأس أصي مساجد كاسنا النبي عليه الصلاة والسلام مالين كاستو سفتي وآدي جري وأنا كسو تكجري صلاة اللي قلت كذا مسجد قباء النبي وحده صلى الله عليه وسلم عمره كلاو عمره لقنته هلك صلاة وقف قلت كذا مسجد قباء كدي النبي وكعب بحي عليه الصلاة والسلام سوى سيوس عضا وضد كسي جرة أيا وحى على شيء جمعادي نوحو كل حوغي في بني سالم ابن عوف في بني سالم ابن عوف لحدو ذا أيو النبي عليه الصلاة والسلام جمعادي يكوها على شيء مركز أوغي وأوتو كذا النبي عليه الصلاة والسلام مسجد وادي رانونا ليرادو خصوصا أيو النبي كنت كذا عليه الصلاة والسلام dadkii daartaas deganay waxay jeclaysteen nabiga kaleey salaatu wasalaam inuu ayaga la dego qolo kasto soo mar waxay jeclaayeen inuu nabiga kaleey salaatu wasalaam oo ayaga ku dawo oo waxay ku dhagayeen hogaanka hasha nabiga kaleey salaatu wasalaam markaas uu nabigu dhahay dacuuha fa innaha ma'mura si daaya hashani waa amran tahay kama aysan suulin hashi nabiga kaleey salaatu wasalaam inay soconayso kama aysan suulin iska soconayso oo ay marayso waxa weeyaan daaraha ansaar ay marayso daarna ma jirin oo ansaar waxa weeyaan ay deganaayeen ilaa waxay jeclaayeen nabiga kaleey salaatu wasalaam inuu ku dago taasna waxay ku tusaysaa jacaylka ay nabiga kaleey salaatu wasalaam u qabeen ansaar nabiguna wuxuu dhahay dacuuha fa innaha ma'mura markii ay timid hashi masaajidka nabiga kaleey salaatu wasalaam oo maanta markii booskaas ay marayso way fariisatahay nabigu laakiin kama degin kaleey salaatu wasalaam markii wax yar fadhisay way hinqatay way kacday waana ay socoto wax yar markaas ay wax weeyaan meelaha fiirisay way soo noqotay mawdicii koowaad oo markii hore ay fariisatay ayay hadana fariisatay markaas nabiga kaleey salaatu wasalaam uu ka degay waxayna ahayd daartaas marka daaru bani najjar ayuu nabiga kaleey salaatu wasalaam ayuu ku degay markiiba alaabta nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa uu qaaday Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu ayaa nabiga alaabtiisii xamaantiisii intuu u qaado gurigiisa u geeyay hashi markii halkaas fariisatay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu guda galay mawdicaas hashu ay fariisatay inuu masaajidka aas laakiin waxa iska lahay meeshaas booskaas waxa iska lahaa laba agoon ayaa iska lahay meel mirbadaho waxay ahayd waxa weeyaan timirta lagu qalajiyo ayay ahayd meesha hashu fariisatay laba agoon baa iska lahaa marka nabiga kaleey salaatu wasalaam uu ka iibsaday masaajidkiisan ayuuna ka dhisay masaajidka markuu aas-aasay nabiga kaleey salaatu wasalaam uu taagay aalkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa loo dhisay guriyaal loo dhisay ila janib al-masjid ayaa waxa looga dhisay nabiga kaleey salaatu wasalaam guriyo ayaa looga dhisay guriyihiisu masaajidka ay ku hareereysnaa nabiga kaleey salaatu wasalaam guri kastana waxa looga sameeyay irid oo masaajidka uga soo gala nabiga kaleey salaatu wasalaam hadaba hijradaas
وحويان فوائد با إسكال هذا فوائد الهجرة أيام وحي الكشيغين هجرة ولا ليال وحي إسكال هذا فوائد عادي فربضان من فوائد الهجرة وحكم ذا الإيمان بالمعجزات الحسية إلا الرميو معجزاتك أو سكم مغضى والنبي عليه الصلاة والسلام انتاس وحويان أو يجروني معجزات كاس وحكسوا مغضي إلا الرميو حكم ذا معجزاتك حكم ذا وحويان النبي عليه الصلاة والسلام إن نافكي غير أمي معبد نبي مركو عندها كسلاحي إن وحويان عانب بدن لغا لسيو سند أبارة وحعنانا إلهين مددا لغرابيه معجزات طيب فوائد هجرة وحكم ذا جواز الاستعانة بالكافر المأمون قال كشرتي سآمن لغيهي إن لكالمي سكره وكو عضهي لكن سدح شرطي بي علماء أشرطيان قال وحويان مركا لاستعماله يولا أديك سنة سدح شرطي بي أشرطيان علماء شرطي كواد وحوية إن عدة الله كالمي سنة إيسا مسلم أهين مسلم وإنا نقول بي قال كالها وأي النبي عليه الصلاة والسلام قال كان عبد الله بن أريقد الديلي وحوها نين كافر أيوه نبي الدليل بقدرت عليه الصلاة والسلام وأنا آمن النبي عليه الصلاة والسلام نبي وحو كفكيناي وكالميناي قريش به طيب مركا مسلم وحويان لو ما كالميسا كرقال تاس مسألة شرطي لبادنا وحوي قال كان تاريخ دي سي هورا مركا لفيريو إنان حرب لغو أفضل تقال إيو وحويان مسلم نعيب إيو إنان لغو قراني إسلام نعيب إنان لغو قراني وقال وحويان حاربة ودقال لغو يقانو مسلمين وحويان عدو تنمى أوهاي وإنو صرحي تصدحاتنا وإن آمن لغيهاي وحويان شرطي سإن آمن لغيه marka shuruudaas dagaal maanta laga helayaa ma jiro ajiro looma daliisho karo waxa weeyaan caalamul islaami maanta gaaladan waxa weeyaan lagu soo aruuriyay khaasatan annaga waxa weeyaan gaaladan wadankeena la keenay Burundiga iyo Ugandayska iyo Kenyaatiga iyo Ethioopiyaankan waxa weeyaan kuwaas ayaga wadanka u taliya ayaga dadkii keenayna ayaga u taliya wadanka dhan ayaga maamula وحويان تان لو مدلي شكر طيب مدة كلام مسلمين بالجوسه هجامي هو أصبح ويان إلهي وحن ويدي سنة إنه هو أصبح ويان قل كان إنه نغنى ذي فيه طيب وحكلوا هجرة كسوان دور المرأة في الهجرة كسوان تدور كهوين يدو الله هاي هجرة أسكعد هاي وحكسوان هجرة التضحية في الهجرة هجرة وحكسوان تضحية هي كسوان نفورد باكسوغا دب باكسوغا تاسنا وي كسبرين صحابه النبي عليه الصلاه والسلام يا نبي waxa kale ku sugan qisada hijrada الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله أياك ويكسوغنت النبي عليه الصلاة والسلام أسبابتنا وقادني إلهي وتلسارني أخسوغنت والنبي عليه الصلاة والسلام كان دليل بخدقناي دليل أيوه وتسيني الصاف كي ولا قاتوي صحيدي سوى قادناي قايدكي سوى قادناي إلهي وتلسارني سبحانه وتعالى الأخذ بالأسباب والتوكل على الله وحكى له قصة قصة هجرة اليقين بأن العاقبة للمتقين إلا يقين يوم مركزتا وعويان عرفت الضنب إن ضدك متقين تاهم مسلمين تاهي إسكالي طيب سيدا إلهي بيجر والعاقبة للمتقين نبي قوحو يقين سناي عاقبة الضنب إن ضدك مسلمين تاهي إليهن ويقعن سراي دونا من فوائد الهجرة وحا كمدا وانكقادنين قصدا فمن حفظ الله حفظه الله وهذا ولا ليه قفك إلهي حفظه سبحانه وتعالى إلهي أسوه حفظنا والنبي عليه الصلاة والسلام وكحديث يقول عبد الله بن عباس احفظ الله يحفظك إلهي حفظي وإلهي دينتي حفظي أوامرت إلهي حفظي يحفظك إلهي باكو حفظنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام مركي أو إلهي ونا سبحانه وتعالى أوامرتي سي أو حفظي
إلهي با حفظي قال ذي كحفظي أيوه وحوين قروي سهرتي سوء استوى سافلتها أي إلهي ونا سبحانه وتعالى كحفظي يسوء جيري حتى مضح وعرق بشر دول النمذو مركا وحال إلى فمن حفظ الله قفك إلهي حفظية حفظه الله إلهي بحفظية سبحانه وتعالى سجن وحكى الله لقى قادنا يا هجرة فإذا لقى قاد حكم إذا ونكفى إذا سنينا النصر مع الصبر جوش وحويان وحيلجرتا مع الصبر صبر وهدان للصبرين وحويان قول لما هلاي نبي صحابتي إن بدن بي صبرين إلهي المركز كذب أي وحو سي قول أي إلهي سي سبحانه وتعالى مركا أن النصر مع الصبر أي ليل وحكم إذا هجرة فوائد لغيه هلاي انتشار الإسلام وقوته إسلام كانوا فافو أودي مسلمين أي فافتو وأنا كان مركا يجرودين كذب أي وحويان إسلام كي آد وفافي أودي مسلمين أي صوت ظاهرتي بناك أي تمت هجرة waxaa laga qaadanayaa oo ku jirta anna man taraka shay'an lillah awadahu Allah khayran min qofka shay ilaahi dirti uga taga ilaahi wina subhanahu wa ta'ala wuxuu u bedela wax ka khayr badan u bedela saxaabadu markay magaalada jeclaayeen oo Makka guriyahoodii iyo magaalada jeclaayeen iyo maalkoodii iyo ehelkoodii markay ka hayaameen ka tageen ilaahi wina wuxuu u bedela subhanahu wa ta'ala wax ka khayr badan u bedelay waxaa ku sugan hijrada waxaa ku sugan قيام الحكومة الإسلامية والمجتمع المسلم إن لا dhiso waxa weeyaan oo la oogo حكومة iyo dawla إسلامية in la oogo iyo mujtamac muslim ah in la oogo oo shaqada nabiga kaleey salaatu wasalaam oo qabtay waxa uu waray masaajid dhisid waxa ku xigay al-mu'akhatu bayna al-muhajirin wal-ansar inuu nabigu walaalayay sallallahu alayhi wasallam mujtamaci muslimiintii inuu walaalayay muhajirin iyo ansar oo muslimiintu markaa ka koobnaayeen waxa ku sugan hijrada fawaa'ida laga helay waxa kamid ah at-tanbih ala fadl al-muhajirin wal-ansar in la isku baraarujiyo fadliga iyo qiimaha iyo darajada ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin muhaajiriinta iyo ansarta dayib waxa ku jirta هجرة وفائدة لغيه لا يكمل ظهور مزية المدينة مقالة المدينة مزية دي يفضل دي قيمها إلا ذا إلا موجي قبل الإسلام ككهر أما عندها قبل الهجرة هجرة كهر با مقالة المدينة وحفظ لي قيمها الله قرنا يمجري لكن فضل دي يمزية قيمها إلا ذا قرن مصوى ظاهري markii nabiga kaleey salaatu wasalaam uu soo hijrooday iyo saxaabadiisa waxa ku sugan walaalayaal hijrada at-tanbih ala 'idami dawr al-masjid fi al-ummah waxa ku sugan in la isku baraarujiyo hijrada nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa ku sugan in la isku baraarujiyo dadka muslimiinta lagu baraarujiyo dawrka waxa weeyaan masjidka ummadda dhexdeeda uu ku yahay inuu aad iyo aad u weyn آدي نووي دورك مسجد يهلك المسلمين تأكتاغي واي النبي عليه الصلاة والسلام مركو مقالة مدينة بيمي شقادي كوات أو بلابي وحي إهد إنه مساجد أساس أي إهد وانا أساس النبي عليه الصلاة والسلام وحكرا كسوغان هجرة أنصار شاقني انتي قصصك أنصار شاقني وحا كسوغان عظم دور الشباب في نصرة الحق وحويان شبابك دورك وين أي كليهين حق أهيلنتي سي أغرغارديس الصومرنا علي فراشك النبي عليه الصلاة والسلام أيوب ساحد فراشك النبي مركاسي هبين كيوردن وحي سوى يعني أمالي النبي عليه الصلاة والسلام بأمالي سافيه لدول تاغي والفيري وحويان قيس النمديس النبي عليه الصلاة والسلام يا أبو بكر ويكتغي ayaa muslimiin ugu dambeeyay asagina halkii ku har wadaa'icdii deyntii waxa weeyaan si oo u sii gudo nabiga waxa ku tusaysaa arintaasna amaanadii nabiga kaleey salaatu wasalaam gaaladii dhibi jirtay nabiga kaleey salaatu wasalaam oo magaaladii ka saartay oo dhiftay ayuu hadana amaanooyinkoodii iyo wadaa'icdoodii iyo ayuu u oofinayaa nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa kale oo ku tusaysaa wiilkii waxa weeyaan Abdullah ibn Abi Bakr
dadaalka uu sameeyay waa ku suganta dadaalka uu sameeyay muxuu inuu soo dhageysto kufaaru Makka waxay ku sheekaysanayaan markaas haddana habeenkii thuluthul layl markuu tago habeenkii marka saddex loo qabo dhig koowaad markuu tago nabigu u iimaanay kaleey salaatu wasalaam markaas u sheegay markaas u sheegay waxa uu ku sheekaysanayay markaas haddana dheelmanayo waagu markuu bariyo wuxuu iska dhigay nin xalay waxa weeyaan ayaga dhexsay marka fawaa'id aad u fara badan ayay hijradu iska leedahay hijradana waa soo qeexno waxa weeyaan al-intiqaal min balad ash-shirki ila balad al-islam in laga tago waxa weeyaan baladka shirkiga iyo gaalada in laga guuro oo la aado waxa weeyaan bilaada islaamka loo hijroodo weeye horana waa uga soo hadalnay maanta darsigeennii iyo kelimadeennii intaas ayay ku eg tahay wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad